السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا دمان جلسة اليوم مالك أنت أو الصومالية اللي جنيسة كارهان ذكر بنتلان أرنكاسي وصون ومقبعي عملوا مر الله عليه مركز السوداني الآن ورحمة الله الصومالية أيقاظ في سودان نقاشين بالملكية الموسى كرد الرؤية وين الرئيق عطا كرد الرؤية كي سمين تشتى بيكمل تعي نقاشات عشي وعكوس ليسياي اللي وصل دوليلون نبضة ورير بنتلانا ورير سناقة وضم شيء اللي ويقع إنه سومالي جيتكو أي وضان مثل قاعدين كرامة دولة اليوم تسليه ضبا نعمل وعقود سنتاي الشعب كذا يبغى كاشانية شعب غير سناقنا وحلوية قاني وعني ما أنت أمام الرئيسة وعي كان علينا عارفة دعكور وادويت وزير سومال على كاشان لقوا أسبوع السنة سبك كرا عيالك فوض عبد دوجيت ولا بقارة هذا احتمال دوجيت وصناديق دي قدام بيشات يرتمع دور الشوين عمالة تفكعين اللي كفليان لما هو عايش كاشانية ومعمولك هي الشعب كشرف له ودفاع عوده مال قوضة يبدي وده انت بسيارة marka mar walba dawladdu waa waajibaad ka saaran xuduudaha Puntland inay difaacdo shacabkuna waa inay dawladda garab istaagaan oo la shaqeeya dawladdu inta badan way tiraahdaa waan difaacaynaa laakiin tallaabo muuqato oo la qaaday ma jirto waad ogeyd oo tukaraq sanad baa ciidamo isor fadhiyeen oo markii hore Puntland laga qabsaday oo kastamo ahayd hadda furin labaad oo sanaaga baa bilaabatay arrimahaas maxay kula tahay maxamedow waa su-aal wanaagsan maxamed oo tukaraq waa laga howlgalay waa la isku horfadhiyaa dagaalkeediina ma dhamaan dagaal badan baa ka dhacay waad ogeyd waa midda aan leeyahay shacabka reer sanaag waxay kaga duwan yihiin howlgallada kale iyagaa dawladda ka horeeya waana sabti lagu yaqaanay weeye dawladduna mar maahan laba maahan saddex maahan way dhinac taagnayd waajibaaddeena wada fulinayeen shacabku number one ka yahay waa meesha aan leeyahay dawladda shacabkeeda ay ku tiirsan tahay shacabku hadduu la shaqeynayana way guulaysanaysaa amniguna wuxuu ka unkamaa shacabka Puntlandna mar walba waa qodob dastuuriya in xuduudaha la difaaco wixii dee daldalooda oo dawladda ku yimaada oo dhaliisha dawladdan waxaan ognahay dawlad cusub inay tahay waxaan ognahay shahayntii siyaasadeeda in baryahan lagu jiray oo aanu maalintii saddexaad maanta daawanaynay waxaan ognahay qodobkii doorashada kusoo galay difaaca xuduudaha inuu ahaa madaxweyne deni waanu la xiriirnaa anagu mas-uuliyiin badan baanu la xiriirnay haddaan nahay qudda joogta talabixin baanu siinaa wacyigelin baanu dadka u sameynaa dadkaanu isku xirnaa anagoo weliba urur SSD la yidhaahda ah mas-uuliyiin badan oo dalka kasoo jeeda oo haddeer aan contact leenahay oo aanu wada xiriirno oo aanu kala shaqeyno taakuleentana aanu la taaganahay baa jira maxamed marka waa waajibaad saaran dawladda wixii dhaliila oo lagu dhaliilayo dawladda dabcan dee markay shaqo socoto dhaliili waa imaanaysaa dhaliishaasi waxaan leeyahay yaan lagu mashquulin dadku hay difaaco waa gartay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo doorka SSB oo adigu ka tirsan tahay kaga aadan difaacan sanaag ee aa sheegtay muxuu yahay Ahmed anaka SSB waxaan u taaganahay horta difaaca iyo xoreyn hadday noqoto ay khusayso in cadowga shabaab ee buuraha ku jira calmadow in laga saaro 2 sanana waa usoo taagnayn dhaawacyaanu ka qayb qaadanay inaanu qaadno wacyigelin baanu ka qayb qaadanay inta badanna bulshadaanu isku xidhnaa deer macaaqid ee saddexdaa gobol kasoo jeeda sool sanaag iyo bari in ay u jignaadaan inay meel uga soo wada jeestaan dadka danaha ka hor imaanaya amni xumada wada in maamulka markaa shaqada haya lala shaqeeyo haddeer dhacdadaan u dambeysay haddeer duulaanka waddanka lagu soo qaaday waa u diyaar garoobnay akoonada SSB waa furan yihiin dadka reer macaaqid ee jaariyadaha qurbaha kala joogana lacag ururintii way bilaabeen si aanu daryeelkii dhaawaca taakuleyntii ciidamada intaba aanu uga qayb qaadanay waad ogtahay Puntland shacabkeedu waa shacab wanaagsan
waad ogeyd waagii aan garmaal ka dagaalgalay iyo suuj anigu weliba aan ku dhaawacmay wixiina dhinac taagnaa lacagtii ugu qamdeed aanu isticmaalayna qurba joog bay ka imanaysa maxamed marka hawshaas sidaasaan ugu diyaar garownay waanuna la xiriirnay mas-uuliyiintii waanuna shaqeynaynaa guddida baran hadeer loo diray weliba xubna contactisa bay noo sameeyeen aanu wada shaqeynaa lana dhaqaalo ururintii wacyigelintii baanu ku jiraa bulshada in la isku xiro waxaa kamid ahayd mudaharaadadii maanta ee hadaafnimo ka qabsoomay mudaharaadadii ceerigaabo ka qabsoomay iyo kuwii yuba ka qabsoomay shalay oo aada ogeed shalay yube in loo diiday inay magaalada ka adeegtaan ciidamadii soo duulay waxaasoo dhan waxaa isku xidhxidhaya oo udubdhacaadka waa SSP weeye maxamed taasi waa sida waxaan rabaa cabdiwaaxid corneyl baa tahay mudda puntland iyo soomaaliyaba ka shaqaynaysay oo xitaa dawladdii dhexe federaalka ahayd oo baydhabo laga raray oo xamar markii ay ku noqoto tan iyo burburkii baad kamid ahayd saraakiishii hogaaminaysay allahu naxariista cabdullahi yuusuf kamid ahaa oo madaxweynaha waddanka ahaa waxaa jira sarkaal somaliland kasoo goostay oo puntland jooga gaar ahaana fadhigiisu uu yahay magaalada qardho dadka gobolka sanaag qeybo kamid a oo warbaahinta la hadlay way eedeeyeen oo fadqalaluu gobolka ka wadaa bay dhaheen adiga aragtidaada ku aadan maadaama nin ciidana tahay caare iyo joogistiisa puntland see u aragtaa maxamed oo qodobkaasi waa qodob muhiima wey caare waa nin reer somaliland sarkaal somaliland kasoo shaqeeye weeye jabhadi waa timacdaa iyagoo dulmidiid ah maamul ama dawlad meel ka dhisan jabhad waa taageerta caare wuxuu soo degay waktigii cabdiweli cali gaas hadduu yimid gobolka karkaar baa la dejiyey nin cabasho puntland somaliland ka qaba buu ahaa halkaa haddii jabhad ahaan lagu dejiyey doolashaa waddanku galay waa la kala mashquulay ilaa iyo waktigii cabdiweli u dambeysay istaraatiijiyad cad oo uu ku joogo caare khaasatan gobolka karkaar dadka reer sanaag looma qeexin ama dadka reer puntland marka aan saa leeyahay maaha in shacabka lala wadaago jabhaddan ujeedkeeda waxa uu yahay meesha ay u socoto waxa weeye gobolka maamul baa ka jira puntland ciidamaa degan adli oo ciidanka daraawiishta ka tirsan oo guutooyina oo saraakiishiisi leh marka ciidan jiid ka hawlgelayo jabhada weliba jiiduna ay cuduud tahay in la isku xiro maamulka gobolka gacanta ku haya oo markaa shaqada haya iyo ciidanka markaa u degan maamulka puntland meesha in la isku xiro ee wada hawlgalaan bay ahay waxaanu ognahay caare inuu ka faa'iidaystay kala guurkii dawladaha uu dhaqdhaqaaq noo bara sameeye movementigaas oo xaqiiqatan xataa weeraro cadcad oo uu qaaday jabhadi weerar waa qaadaa weeraro cadcad oo uu qaaday xataa aynaan arag dhaqdhaqaaqa shakiga marka dadka reer maaqir waxaa muujiyey istaraatiijiyad cad oo aan dawladdu dadka la wadaagin oo caare uu ku hawlgelayo iyo caare oo dhaqdhaqaaqiisu sii soo soco uu ku koobnaa oo aan operationno rasmiya oo markaa la tilmaami karo la oran karo jabhadaasi hawlgal bay ku jirtaa aan ahayn marka taasaa shakiga keentay waxaanse qabaa maantay dawladdu xubnihii u sarreeyeyna waa la hadalay in la qeexi doono caare shirkiisii jiraa shalayna aad baan aan ugu soo dhaweynaya wuu qeexa caare qofka uu yahay waxa uu doonayo puntland in uu la baxo inuu nin soomaaliyeed yahay xaqiiqatanna caare waa reer sanaag anagu sanaag baan wada degannahay laakiinse sanaag dee waa iyadoo la wada degan yahay haddana la kala degan yahay sidaa la hadligeed cabashada shacabku ay muujiyeen waa mid ka timid xagga dawladda oo dadku ay oo madaxdu dawladda lagana arag dhaqdhaqaaqa caare inuu ku lamaansan yahay dhaqdhaqaaq puntland oo la hawlgelaya